siyaasiyiinta Soomaalida ayaa miir daboolma markii ay xukunka dalka helaan iyagoo iska ilooba danaha ummadda Soomaaliyeed ee loo dhaariyay taa beddelkeedana ka shaqeeya ajandayaal ay dana gaar ah ka leeyihiin waxay iloobaan wax kasta oo ay ummadda Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin haba u badnaadaan kuwa xilka ugu sarreeya ee dalka haya waxa isburiya ficiladoodii iyo hadalladoodii shalay oo qaarkood duuban markii ay ahaayeen kursi raadiska waxa isduqeeya oo isburiya ficilada iyo hadallada marka ay kursi raadiska yihiin iyo marka ay kursiga helaan waxaana tusaale cad u ah madaxda maanta kursiga joogta oo ku dhaqaaqday wixii ay ku diideen madaxweyne hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo ay kow ka tahay muddo korinta xeeladaysan ee lagu gaaray dhamaystirka dastuurka ujeedka ugu weyn ee laga lahaana uu ahaa waqti dheeraysi haddii sheekadani aad moodo inay tahay mid ka badbadis ama iidhe ah aan dib ku xusuusiyo ficilada la yaabka lahaa iyo diidmadii xoogganeed oo ay soo bandhigeen kooxda hadda haysa talada dalka xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay xitaa gaartay inay abuuraan qalalaasi ay u bixiyeen magaca badbaado qaran iyagoo ku hanjabayay in dalku u laaban doono 1991 sidoo afkiisa ka yiri wasiirka difaaca xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo waaga si weyn uga soo horjeeday damaca madaxweyne Farmaajo wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir gacanta midig ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ahaa mid ka mid ah siyaasiyiinta ku taageeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud abuurista badbaado qaran wuxuu muddo kordhinta u arkayay mid dadka kala geynaysa wuxuu qabay aragti ah in la xisaabtamo madaxda kursiga joogta oo ay mucaaradnimo ahayn in la xisaabtamo madaxda laakiin taa beddelkeedana ay tahay dhismaha dawladnimo casri ah xukuumadda federaalka hadii inta la xisaabtamo oo waliba si xoog leh loo xisaabtamo oo wasiiradeeda la eriyo oo ra'iisul wasaaraheeda la eriyo oo laga shaqayn lahay maanta dibka taagan hadda inaanay taagnaateen aan aaminsanahay sababtoo ah la xisaabtanka wuxuu keenay lahay shaqo la iska rabo war shaqada la iska rabo ma qabana laakiin marka adigoo kala dhalinyaro soo baxday oo aad tiraahday mooshin hadii la keeno waa dambi hadii xukuumadda la xisaabtamo dawladda dumaysa hebel waa astaanta qaranka hadii lala hadlo waa qaranka baaba'ay hadii dawladnimo nooma dhismayso dadkani waa mas'uuliin waa in la xisaabtama oo xisaabta la soo hor istaajiya hadii taas marka oo aragto mucaaradnimo inay tahay inay laga qabasho tahay inay wax xun tahay hadda meeshaas anaga da'deeda soo gaaray laakiin Faarax Sheekh Cabdulqaadir hadda oo uu ka mid yahay madaxda uu sheegayay waajib inay tahay in la xisaabtamo waxa uu raali ka yahay muddo kororsiga dawladda uu ka tirsan yahay ee uu hoggaanka u hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu aqbalay doorasho qof iyo cod ah oo habka ay dawladda u wado aysan jirin cid ku raacsan oo ah saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada dalka maqnaashaha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxa uu u arkaa in aan loo joojin maadaama uu nidaamka uu ka tirsan yahay ay diideen in ay dhageystaan madaxda Puntland iyo Jubbaland kadib wada hadallo dhowr ah oo la galay taasi oo si cad ku tusaysa isbeddelka aan loogu tureynin si socoshada dawladnimada Soomaaliya ee uu ku dhaqaaqay Faarax Sheekh Cabdulqaadir Xasan Macalin wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sanadkii 2021 iyo 2022 waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta u ololeynayay in la diido muddo kordhintii uu sameystay madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay inay fashil dawladnimo tahay in la qabto doorasho qof iyo cod ah oo aan loo dhamayn maqnaashaha Puntland iyo Jubbaland wuxuu u arkayay kala go'o dawladnimo waxa uu ka mid ahaa garbaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligaasi ahaa hoggaanka ugu afka dheeraa ee mucaaradkii waagaas jiray wuxuu ku celiyay inaan joogo jeceliyaa saaxiibayaal anaga inaan joogo jeceliyaa waa fulaynimo inaan geesiyaal ahaano oo dalka iyo dadku u horseedno oo madaxda u sheegno oo dhahno dalku doorasho aada aqalkaan aqal la soo doortay oo shacabkii waaye uma horseedi karna waddanka inaan dhahno waa iska joogaynaa ama annagaa la soo wareegayna mushkilad jirtay أنا waxaan hadlayaa oo soo istaagay maana soo istaagi jirin waxaan ogahay fashilkaas aan la soo wareegay anaga ku fashilmay waa ku ceeboobaynaa baan kala kulmaynaa inaan idinka qabtaan leenahay ka jooga nimankaan madaxda waxa ay jecel inay maqlaan meesha laga sheegay muhiim ah waxaa rabaa meesha runtii laga sheego markii la soo istaago mimbarkan waa in xaqiiqada la sheego
xasan macalin hadda waa wasiirka cadaaladda ee arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa uuna horseed u yahay dastuurka cusub ee la ansixiyay ee la isku khilaafsan yahay maadaama uu isagu ku magacaaban yahay wasiirka cadaaladda ee arrimaha dastuurka taasi oo si cad ku tusaysa in uu raali ka noqday muddo kordhintii uu shalay diiday doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ee aan loo dhamayn kala dirista dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo xubin ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo Xasan Macalin oo kaliya ma aha siyaasiyiinta ku miir daboolmay kursiga waxa tirabeel noqday siyaasiyiinta la aamusan afgarashada macaashka ah ee kaga timid nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa tirabeel siyaasiyiinta galka macaashka ilowsiiyay aragtidoodii shalay ee xilligii ay mucaaradka ahaayeen waxaana warbaahinta Himilo ay daboolka ka qaadi doontaa isbeddelka ku yimid kooxda talada dalka haysa